maalnimadii shalay ay ahayd markii weerar ismiidaamin ah lagu qaaday xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir taas oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin xilal ka hay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir iyo gaasimiyaal iyagana ka tirsanaa gobolka Banaadir sidoo kalena uu ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Riisow dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay ka falceliyeen weerarkaasi iyagoona sheegay in aad ay ugu xun yihiin waxayna tacsi u direen ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho waxayna sidoo kale alle ay u baryeen in caafimaad uu siiyo dadkii ku dhaawacmay isla markaana uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Riisow afeenka dawlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro ayaa warbaahinta kaga warbixiyay kulanka maanta ay yeesheen mas'uuliyiinta sare ee dawlad goboleedka Hirshabelle بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا وكاد لي مقعيقة مقع مدحوينها دولة قبلات هيرشبelle مقع مدحوينك وحقنك دولة قبلات هيرشبelle يقود هان شعبك هيرشبelle وحن تعسي قود أدرينا ماملك قبلك بنادر يا شعبك رير مقدشو falkii foosho xumaa ee gooxaha argagixisadu shalay ay ka geysteen aqalka dawladda hoose ee Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad mas'uuliyiin ah oo qaali ah agteenana qiimo badan ku lahaa sidoo kalena uu dhaawac uu ka soo gaaray gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Riisow iyo mas'uuliyiin kale oo maamulka gobolka Banaadir kamid ah xaqiiqatan falka meesha ka dhacay saakay dawlad goboleedka Hirshabelle mas'uuliyiintooda uga sareysa golaha wasiirada waxay isugu yimaadeen shir ay ku muujinayaan falka meeshaasi ka dhacay inuu ka xun yahay sida ay uga xun yihiin xaqiiqatan waxaan runtii kulanka inta uu socday aan ku soo bandhignay sida dawlad goboleedka Hirshabelle maamulka iyo shacabkaba ay uga xun yihiin shacabka reer Banaadir falkii dhibaatada badneed ee shalay soo gaartay xaqiiqatan ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay dadka mas'uuliyiinta meesha ku dhinteen sida anaga hadda warbixinta nagula siiyay waxa meeshaasi ku dhintay gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis gudoomiyihii degmada Shangaani gudoomiyihii degmada Waabari sidoo kale meeshaasi waxa ku dhintay agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale waxa ku dhintay agaasimihii waaxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir horena u soo noqday afayeenkii maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo runtiina ahaa saaxiib Hirshabelle ay lahayd runtii ahaa garab runtii naga baxay naga warhayn jiray noo imaan jiray na soo booqan jiray aan iswaaci jirnay ilaahay ha u naxariisto sidoo kale waxaan inta kulanka saaka uu socday aan ugu duceynay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu caafimaad uu siiyo maayarka caasimadda Muqdisho gudoomiye injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Riisow oo dhaawac uu soo gaaray laguna dabiibayo isbitaalada magaalada Muqdisho la rajeynayna in dalka dibadiisa loo qaado maanta insha Allah ilaahay waxaan ugu barin inuu caafimaad siiyo in dhaawaciisa ilaahay mataqaana uusan ka dhigin mid culus waana u duceynay kulanka intuu socday sidoo kale kulanka intuu socday waxaan ku muujinay dareenkeena ah dhibaatada reer Banaadir ku dhacday inay la mid tahay Hirshabelle inay ku dhacdo oo kale Hirshabelle oo wax ay gaareen waa reer Banaadir oo ay wax gaareen xaqiiqatan waxana laga maarmaan ah oo runtii aan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladda Soomaaliyeedna ogeysiinayna haddana kooxaha argagixisada si wada jir ah loola dagaalin haddaan kooxaha argagixisada ah aan laga hortagin dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ay ku hayaan dadka mas'uuliyiinta ay qarxinayaan ee u shaqeynaya shacabka iyo qarankaba ee markasta bartilmaameedsanayaan waxa ay noogu imaanaysaa xafiisadeena iyo guryaheena waa laga maarmaan in si wada jir ah argagixisada loola dagaalamo in gacmaha la isqabsado in dawladnimada Soomaaliyeed ee aan matalno laga dhabeeyo in kooxaha ummadda dhibayna laga qabto waa laga maarmaan insha Allah ta'ala xiriir kala duwan ayaan sameyn doonaa anagoo sameyn doona isku duubni ah si kooxaha nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayana in meel kasta ay joogaan lagu weeraro mataqaana lagu soo qabqabto haduu ilaahay ka raali noqdo mar kale shacabka reer Banaadir maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waan uga tacsiyeenayaa dhibka shalay ka dhacay gobolka Banaadir waan isaga wada tacsiyeenaynaa oo waxa meeshaasi dhibaatada ay ku soo gaartay dadku waa dadkeeni ilaahayna inta dhaawac ah ugu horeeyo gudoomiye Riisow caafimaad taama siiyo inta dhimatana rabbi ha u naxariisto idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
cabdiraxmaan xuseen cumar wadani TV-ga kalsan magaalada Jowhar.